mahadsantahay cabdiqadar bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhageystayaal warkii oo dhammaystiran golaha wasiirada Soomaaliya ayaa xalay yeeshay kulan degdeg ah tan markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya dhanka kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa jawaab kulul siisay hadal dhawaan ka soo yeeray dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub Cabdicasiis Cali Guuleed ayaa warkan inoo haya sihayaha xilka ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed ayaa kulankii ugu horeeyay shirka golaha wasiirada codka kalsoonida lagala noqday shir gudoomiye waxaana looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin faragelinta beesha caalamka arrimaha amniga talaabooyinka baarlamaanka oo ku riday xukuumadii Kheyre wasiirka wasaaradda warafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulankooda uga hadleen iyo ajandayaasha kulanka golaha wasiirada waxa uuna sheegay in si gaar ah looga hadlay sidii loo sii wadi lahaa howlihii xukuumadda isla markaana waxa uu aad u bogaadiyeen xubnaha golaha wasiirada shaqadii adkeed ee horkarnimada ahayd ee Ra'iisul Xasan Cali Kheyre oo hore u soo qabtay ajandayaashii had iyo jeer taagnaan jiray ee ugu horeeyay dabcan warbixinta amniga dalka sidoo kale xaaladda dalka ee COVID-19 iyo sidii dalka dib loogu furi lahaa waxaa kale oo looga hadlay si xoojinta howlaha xukuumaddu wado maadaama shalayto go'aankii golaha shacabku qaatay xukuumadda kalsoonida lagala noqday ilaa inta xukuumad kale oo xilka kala wareegta laga soo dhisayo in howlaha dowladda sidoodii ay ahaadaan oo la dardargeliyo goluhu wuxuu ugu horeynba ammaanay runtii waxqabadkii iyo soo jeedkii iyo howlkarnimadii iyo qorshihii fiicnaa ee uu sameeyey ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa aad iyo aad loo ammaanay loona rajeeyay khayr iyo future wanaagsan kaalintiisii hogaamineed ee golahan shalayto kalsoonida lagala noqday uu ku hogaaminayay intaas kadib golahu sidoo kale waxay ka hadleen dabcan u diyaar galowga marxadda kala guurka iyo inaan shaqooyinkii dawladdu aanay dib u noqonin inta xukuumad kale oo xilka la wareegaysa dhanka kale shirka golaha wasiirada ayaa waxa ay ka soo saareen jawaab u ahaa baaqyadii adkaa ee Mareykanka iyo midowga Yurub ee u socday madaxweynaha iyo baarlamaanka kuwaasi oo looga soo horjeeday xilka qaadista ra'iisul wasaare Kheyre golaha wasiirada ayuu sheegay Maareeye inay ugu baaqayaan saaxiibada Soomaaliya ay ula jeedaan beesha caalamka inay ilaaliyaan madaxbannaanida dalka hanaanka talooyinka ay siinayaan dowladda ay u marsinayaan marinada diblomaasiyadeed golaha wasiiradu runtii wuxuu bogaadiyey taageerada beesha caalamku had iyo jeer ay la garab taagan tahay dowladda Soomaaliyeed siyaasad leh horumarin leh dhaqaale leh amni leh ayaa golahu aad iyo aad u bogaadiyey haddana dhinaca kale waxay golaha wasiiradu ka codsadeen diplomatic missionska iyo dowladaha aanu saaxiibka nahay inay ixtiraamaan madax bannaanida iyo dastuurka iyo go'aamada hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda inay ixtiraamaan wixii tala ah ee hayaan u hayaan horumarinta iyo adkeynta nidaamka dawliga ah ee Soomaaliyeed na inay u maraan janaalka diblomaasiyadda ay u maraan waa kulankii ugu horeeyay ee golaha wasiirada kalsoonida oo kala laabtay baarlamaanka ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho waxaana hadda muuqanaysa in ay howlaha golaha wasiirada ee si kumeel gaar u sii haynayaan qaar ka mid ah golaha wasiirada oo idoona dhawaan madaxweynaha Soomaaliya oo xilkaasi u magacaabay sihayaha wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guuleed faahfaahinno kala duwan ayaa laga helayaa dooni ay saarnaayeen dad shacab oo ku degtay xeebta degmada Marke ee gobolka Shabeellaha Hoose wariyaheena Cabdiqadar ayaa warkan inoo haya wararka ka imaanaya qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose siiba xarunta gobolka Shabeellada Hoose ee Marka ayaa waxay ku soo waramayaan in dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmadaasi gurmad ahaan ay u gurmadeen doorni ay saarnaayeen dhowr iyo 10 ruux taasoo la sheegay inay ku degtay meel qiyaastii 18 kiiloomitir dhinaca bari kaga beegan xeebta degmada Marka doonidan oo ka soo sharaacatay xeebta jasiira ee duleedka Muqdisho ayaa wararku waxay tilmaamayaan inay saarnaayeen ku dhawaad 11 ruux waxaa geeriyooday hal ruux waxaa raqiyo ruux la laayahay 3 ruux waxaana la soo badbaadiyay inta kale sida idaacadda u sheegay qof ka mid ah dadka gurmadka u sameeyay dadka doonidu ay la degtay wuxuu sidoo kale sheegay in qofkan geeriyooday uu ahaa askari ka tirsan ciidamada booliiska kaas oo saarnaa doonida degtay
niyow shalay abaara xilligii gobolka uu dhacay doon rakaab ka soo qaaday deegaanka jasiira ee magaalada muqdisho oo wadi ilaa 12 qof oo rakaab ah ayaa waxay ku qalbinta afaafka hore ee magaalada marka xeebta magaalada marka durbadiiba waxaa soo badbaaday ilaa 7 qof oo dumar uu ku jiro qofka sideedaad yar dhalinyaro ah oo askari ah oo ciidanka dowladda ka tirsan dhinaca buulamareed ayuu ahaa waa uu dhintay isbitaalka loo soo qaaday dib ka soo gaartay doontii waxaa baddu ay qaaday 3 qofood gurmad loo sameeyay kadib qof noolaa la helay 2 qof ayaa ilaa hadda wayaay doonta dabaylii xagaaga lagu jiraa waa xilli dadka badda ka kalluumaysan jira xataa dowladda ay banaanka geeyeen baddu aad u kacsan tahay laguma safri karo kalluun xataa lagama soo ugaaran karo marka mawjada ku dhufatay meel hoosii maraysay biyaha hoose ah mawjada ku dhufatay waa dadka rakaabka qaarkood ma aqoonin dabaasha ilaahay maadii intaas ka soo badbaaday doortina waxaa soo gaaray motorkii badda uga dhacay gurmad ay sameeyeen dadka reer marka hal qof oo nolosha lagu helay 2 qof baa ilaa hadda baadagoob loogu jiraa dhinaca kale xiriiro kala duwan waxaan la sameynay maamulka degmada marka iyo kan gobolka shabeellada hoose waxayna inay xaqiijiyeen inay jiraan baadigoob loogu jiro in la soo helo dadkii saarnaa doonida oo qaarkood raq iyo ruux la laayahay 2 sitimaan ama 2 toddobaad ka hor oo sidan oo kale ayaa dooni ka shiraactay xeebta jasiira waxa ay ku degtay xeebta degmada marka waxaana dadka u dhuunduleela arrimaha cimiladu ay sheegayaan in sababta keentay waqtigan in xeebuhu ay u kacaan ay tahay waqtiga dabeel xiradka dhowr jeerna looga digay kalluumaysatada iyo dadka ku safra badahaba in ay ka digtoonaadaan waqtiyadan oo kale inay badda ku safraan madaxweynaha Puntland ayaa sharci darro ku tilmaamay xilka qaadistii lagu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre sidoo warkan inoogu faahfaahinayo Sakariya Axmed Muuse waxaa soo taraya mucaaradada looga soo horjeedo go'aankii baarlamaanka uu ku eriyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre taasi oo lagu tilmaamay qalqal siyaasadeed oo hor leh oo ku soo kordhay hanaanka geedi socodka doorasho ee dalka iyo isku soo dhawaanshiyaha maamul goboleedyada qaar iyo dowladda dhexe baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaatay go'aan ka baxsan ajandihii horyiilay 25kii bishan aynu ku jirno kadib markii cod la geliyay kalsooni kala noqoshada xukuumaddii Xasan Cali Khayre madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in xilka qaadistaasi ay dhawarjab ku tahay shirka dhuusamareeb iyo wixii ka soo baxay isagoo hoosta ka xariiqay inay adkaan doonto sidii mar kale la isugu soo laaban lahaa waxaan aad uga xumahay wixii shalay ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed u cadeeyo aniga oo dawladda federaalka ah muddadii aan hadda wada shaqaynayno ay aad u fiicnayn kalena saaraynin madaxweynaha iyo prime ministerka laakiin muddadii hadda aan galmudug joogno waxa ay muuqanaysay prime ministerku inuu diyaar u ahaa wixii lagu heshiiyay inuu fuliyo uu nagala hadlayay waliba waxyaabaha iyo sida u fuli doonto uuna u hayay in dalku doorasho uu gaarsiiyo waqtigeeda ku dhacda oo suuragal ah oo u muuqata midda qof walba uu filayo oo ah doorasho dadban inuu qanaacadaas qabay xilka sida sharci darrada looga qaaday oo la yiri waa laga qaaday waxay uu sababsaday in uu wixii madaxda dawladda federaalka iyo dawladda Soomaaliya ay dawladaha xubnaha ka ay ku heshiiyeen inuu daacad ka ahaa inuu fuliyo cidda ka qaaday oo arrinta ka dambeysana waxay u muuqanaysaa wixii meesha laga heshiiyay inaysan daacad ka ahayn oo ajanda kala wadatay waxaan rabaa inaan dhowr arrimood halka aan ka cadeeyo baarlamaanka wixii shalay uu sameeyay waxa muuqanaysa inuusan marin habraacyadii ra'iisul wasaaruhu xilku waa meerto shalayba waa la magacaabay baarlamaanka ayaa ogolaaday baarlamaankuna awood uu leeyahay inuu ka qaado laakiin wixii shalay meesha ka dhacay waxay ka hor imaanaysa dhammaan shuruucdii dalka u deganayd iyo habraacyadii lagu yaqaanay marka la rabo in la eedeeyo ra'iisul wasaare Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ku tilmaamay go'aankii baarlamaanka mid sharci darro ah oo aan loo marin sifo sharci ah shalay ahayd bishu 25 ahayd waxaa dhacay wax aan ku tilmaami karno inuu silsilaal siyaasadeed ahaa oo anagu aanan filanayn kan Puntland ama shakhsiyan
xogtiisana aanan war u haynin laakiin markaan ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay aan dib u akrinay waxyaabihii dhacaya doodo badan aan ka galnay noo soo baxday wixii halkaa ka dhacay inay ahayd wixii quruxda badnaa ee ka soo baxay shirkii dhuusamareeb iyo diiladii la qabay ee ahaa in hore loo socdo wax lagu xagal daacinayo oo la rabo in lagu burburiyo arrintaas waxaan runtii mas-uuliyaddeeda saaraya madaxweynaha jamhuuriyadda maxaa yeeley wixii uu noo sheegayay iyo wixii aan ku heshiinay oo dhan waxaan ahayn ayuu ku dhaqaaqay habeenkii shirku dhacayana annagoo la nimid niyadsamay khudbadihii dadkuna ay u ekaayeen kuwo isu soo dhoweyn ah khudbadiisii waxay hordhac u ahayd in wixii meesha aan ku gaarnay uusan raalli ka ahayn ajendayaal kaleetana u wato tan iyo wixii ka dambeeyey markii golaha shacabka baarlamaanka ay xilkii ka xayuubiyeen ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre waxay soo tarayey dhaleeceynta loo jeedinayo baarlamaanka ee ah in ay baal mareen sharciga iyo in ay qalqal siyaasadeed gelinayaan dalka. dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in arrimo siyaasadeed loo jaray khadka internetka oo saacadihii ugu dambeeyay ka maqnaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Wariyaheena Jaamac Kadiye ayaa warkan inoo haya. adeega internetka ayaa ka go-an koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya taasi oo saameyn xoogan ku yeelatay xiriirkii dadweynaha iyo xafiisyadii ku shaqaysan jiray barnaamijka qadka online-ka ay bixin jireen shirkadaha waaweyn qaarkood iyo xafiisyada hay'adaha dowladda Soomaaliya oo iyana uu ka maqan yahay internetka. injineer Cabdi Canshuur Xasan wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in cilad aan la filaynin uu ku yimi waayarkii xiriirinayay internetka ee hoos marayay badda. wasiir Canshuur ayaa waxa uu meesha ka saaray warar ay shacabku hadal hayeen oo ahaa in uu internetka u go'an yahay arrimo la xiriira siyaasad balse wax uu beeniyay arrintaasi in ay waxba kama jiraan ay tahay isla markaana laga badbadinayo waa siduu hadalka u dhigee. oo maanta saaka abaarihii 10 ama 4 subaxnimo ayaa waxaa loo arkay cilad xariga badda soo dhexmaro ee loo yaqaano fiber optica ee leedahay shirkadan Telcom oo internetka siisa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. ciladaas ilaa iyo hadda waa lagu mashquulsan yahay gaar ahaan shirkadda Telcom ayaa ku mashquulsan in ciladaas la ogaado nooceeda halka ay ka dhacday baaxadeeda si markaas cilad bixinteeda loogu tawaabulshaysto. marka waa cilad farsamo oo ku timid xariga badda soo dhexmara ee loo yaqaano fiber optica. hawshiisana waa lagu jiraa in ciladaas la ogaado baaxadeeda si markaas cilad bixinteedana markaa loo guda galo. xarigan badda ayuu soo dhexmaraa waa xarig isku xira koonfurta Afrika ilaa iyo Masar oo badda yaallo. meesha uu nooga soo leexdo waa 300 iyo dhowr kiiloomitir badda dhexdeeda ka soo leexda xariga Soomaaliya soo aado gaar ahaan toos u soo aado magaalada Muqdisho. waxaan qabaa in waxyaabaha kale soo dhexmaray wax jira maaha. cilada dhacday waa cilad farsamo. dowladda sideedaba wax ma cuslayse waxbay fududaysaa ummadda u fududaysaa maaha dowladda ummadeeda. arrimaha siyaasadeed dalka hore ugu dhex jireen waana ka dhici doonaan haddana waa dhacay waxa isku xirana maaha. marka waxaan si cad u sheegayaa waxa dhacay waa cilad farsamo laakiin ma aha cilad siyaasadeed iyo howlo kale. in teknolojiyada iyo aqoonta iyo waxyaabaha dhaqaalaha saameynaya marna dowladda ma siyaasadayso. marka arrinkaas waxba kama jiraan. adeega internetka ayaa waxa uu ka mid noqday nolosha caadiga ah waxaana muuqda in uu jiro khasaare maaliyadeed oo uu soo gaaray shirkadaha ka shaqeeya adeegyadaasi internetka balse lama oga cadadda ay la eg tahay dhaqaalahaasi ee soo gaaray shirkadaha bixiya internetka. guud ahaan warkii subax oo saaka aad si toos uga dhageysanayseen radio Shabeelle intaas ayuu nooga egyahay. warkankiisa xiga ayaa inoo balana sidaas iyo nabadgelyo.